xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa inta badan ka soo daaha kalfadhiyada caadiga ah ee ay leeyihiin waxaana aad arkaysaa inta badan xildhibaanada oo waqti badan sugaya inta uu soo buuxsamayo kalfadhiga caadiga ah si loo ansixiyo hadba waxa u qorshaysan ee maalinta ay ku tala galeen golahu. Gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ayaa ku wargeliya xildhibaanada inay soo xaadiraan xilliga loogu tala galay, balse waxaa soo noqnoqda habsanka xildhibaanada. taasina waxa ay qaadataa in waqti dambe uu soo buuxsamo koorumku isla markaana la gudagalo shaqo maalmeedka caadiga ah si loo ansixiyo hadba mowduuca horyaala xildhibaanada golaha wakiilada. haddaba kalfadhigii maanta oo loo ballansanaa inay ansixiyaan xisaab xidhka miisaaniyadda 2017 ayaa waxa uu u baaqday kalfadhigaasi kooram la'aan iyadoo aanay soo xaadirin tirada la rabay in uu ku buuxsamo koorumku. waa kan gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baashe Maxamed Faarax oo ku wargelinaya xildhibaanada in ay soo xaadiraan xilli hore si ay u gutaan waajibaadkooda. xildhibaanada joogaan waa wanaagsan yihiin, xildhibaanada maqalna maanta waxaa ka bilaabanaya xildhibaankii loo waayay isaga sujooda gooro waa xilliyahay qoydo berito haddii ay xildhibaanada maqalna ay xalinayaan. maaha markii ugu horreysay ee xildhibaanada uu ka baaqdo qorshayaal ay ku ansixin lahaayeen hadba mowduuca horyaala, balse tiraba dhowr jeer oo hore ayaa gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland uu ugu baaqay xildhibaanada golaha wakiilada in ay xilli hore iska soo xaadiriyaan. xilliga loogu talagalay ee caadiga ah in ay soo xaadiraan xildhibaanadu ayaa ah 9 subaxnimo, halka aad arkayso kalfadhiga oo furmaya 10 iyo badhka amaba 11 duhurnimo. cali maxamed xuseen cali wacays, telefishanka Saab, Hargeysa. daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare, sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino. meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka Saab TV, sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. fadlan nagu xidhno. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.